sheekh ragga iyo dumarku ma siman yihiin xagga maktab maktabku ma sinna oo ninkana 100 baa laga dhigay dumarkana 50 baa laga dhigay axaadiis baana ku timid sida xadiidkii Mucaad ibn Jabal walow sanadkiisa hadal uu ku jiro culimo badanina ijmaac bay ku soo naqliyeen bal culimada qaar waxay yiraahdeen masalada dadkii muslimka laba nin baa la hayaa oo khilaafay ibn Ulayya iyo Asam oo labaduba mu'tazilada kamid ka ahaa dadkii aqliga buunbuuninayay ee kitaab iyo sunna marka loo keeno dhinaca iska dhiga ay yiraahdaan yow rag iyo dumar tawasimayhiina waa isku daa waa isku nooc waa bini aadam maxaa ninkana looga dhigay 100 gabadhiina 50 markaynu xikmadda eegno ilaahay wuxuu uga dhigay bilaash ma ah ku dhufo ka dhaqaaq ma ah ujeedda laga leeyahay ninka iyo gabadha ilaahay waa kala duwan marka xoolaha laga hadlay farqi weyn baa u dhaxeeya maanta nin hadii la dilo waxa laga yaabaa ninkaasi dunida inuu maamulay hawlo badan uu qabanay oo ilaahay abuurka uu ninka u sameeyay iyo kartida uu leeyahay waxa weeye dumarka ilaahay uma abuurin way jiraan de gabadha maqiiqan oo si rag oo kale u shaqeeya waa nafagaara weey taala sharciga waxba kuma dhiso rag deelaysiin oo dumarka kaliitaana waa jiraan laakiin sharciga waxa lagu dhisaa sida dabiiciga ah isku karti ma aha rag iyo dumarku isxaanisiyana ma aha isku culaysna ma aha ninka mas'uuliyad baa fuulaya gabadhu maalintay dhalatay ilaa ka dhimanayso wala kafaala qaat intay yartahay waalidkeeda kafaala qaatay haduu waalidkeed inta qaraabadeed markay xaas yeelato waxa weeye ninkeeda kafaala qaadanay ninkeedu meesha haduu ka baxo ubad baa soo galay ubadkeeda kafaala qaadanay meel la leeyahay gabadha waxa ku waajiba inay cid biiliso diinta alla lagu ma hayo laakiin ninka wax walba isaga waajib ku yahay xoolo noqoto isaga wax walba laga doonay guurka kharashiisa ayaa laga doonay ninka laga doonay meherkiya laga doonay ninkii baa laga doonay gurigiya laga doonay ninka laga doonay biilka ayaa laga doonay ninka laga doonay maryaha iidka iyo wixii la xidhanay ninka laga doonay kharash dawadiya laga doonay ninkii baa laga doonay haddaad $200 ku shaqaynaysa ninow islaantaaduna ay $1,000 ku shaqaynayso guriga yaa biilinay ninka laga doonay islaanta jeebkeeda waxay ka bixisaa waa gobanimo iyo deeqsinimo islaanta waxay inay akoon ku shubto ay ku tiraahdo biilku naguma filna soo kordhi xaq bay u leedahay markaynu eegno culayska ninka saaran ee kale iyo waxa laga doonayaa aad u badan sidaas ilaahay xagga xoolaha ku kala duway oo raggana dhaxalkooda loo badiyay magtooda loo badiyay dumarkana looga dhimay marka waa xikmad alle subhanahu wa ta'ala dumarku daaday inagu qayliyaan oo yiraahdaan maxaa nusna looga dhigay waxa soo dhanbay jaanis u haystaan oo iyaga loo badiyay oo ay naga duwayeen insha Allah ta'ala wallahu a'lam